aniga Soomaaliya waxaan u sameeyaa saaxiibo strategic farayn dhisaan u sameeyaa strategic saaxiibaan u sameeyaa haddaad qaladiin marka waxaa soo dhamay dhume xaduudahay dhume dalkay gade hantidii kaydka aheeday dhaceen waxaad ogtiin 130 malyan inay dhaceen waxaan anigu marka samaynayaa waxaa soo dhamaan sidii loogu talagala uwada maxaa yeelay waa fursad qaali waxay rabaan inay adduunyadiina idin hilmaamsaan oo nasiibkiina idin gefiyaan inta dooratiin mar haddii ay karaamadii iyo sharaftii fursadeedii dhuminayaan waxaa la rabaa haddana waxay rabaan inay shacbiga Soomaaliyeed ay adduunyada gefiyaan ay aakhira u diraan taas marka waxaan rabaa anigu inaanan idin gefin adduunyadiina nasiibkeeda aan idinla qaybsan mudanayaal iyo marwooyin dhowr jeer oo hore ayaan doortay oon iska hormariyey madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaarayaal aan isleeyahay kuwan ayaa daacad u ah keeni kara isbeddel iyo waxqabad ay u baahan yihiin shacbiga Soomaaliyeed hase ahaatee uma dhicin sidii aan raba sidaas darteed marka waxay igu kaliftay in anigu soo joogso maxaa yeelay aniga inaan qaba kara waa ogahay laakiin dad waa ku daala dadkii laakiin aniga haddaad i dooratiin waxaasaan qaba kara ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku keeni karta in laga quusto Soomaaliya iyaduna ay iska quusato sidaa darteed marka waxaan ugu talagalay inayna Soomaaliya iska quusano anaa samata bixi kara aan samata bixi maxaa yeelay kuwa aan samata bixi karin naftay nagu dhibeen waxaan ogahay wax allaala waxaad idinku rabtiin shacbiga Soomaaliyeed oo danyarta wax noloshaan la qaybsada marka waxaan garaa waxa ay u baahan yihiin kuwan laakiin garamaayaan waa iska socdaan waxaa dhici karta musharaxiinta walaalaheeda in qaarkood ay iga fiican yihiin xagga dhaqaalaha iyo abaabulka iyo baabuurta iyo suugaanta laakiin aniga slogankaygu wuxuu yahay lacag waa qaadasho codkana waa in aniga la isiiyo slogan kale oo anigu aan wato ma jiro shan arrimaha bulshada waxaan soo celinayaa caafimaadka iyo fayadhowrka biyo wanaagsanna waa la cabaa dib u heshiisiinta ayaa sii wadaa walaalaha Somalilandna waxaan ugu baaqaa midnimo waana ka mid dhalinayaa oo anaa SNM Haajir sidaa awgeed waxaan qaxootiga gudaha ku jirana oo barakacayaasha dalka gudihiisa ayaan ku daryeelaa kuwa dibaddana dalkoodaan ku soo celaa maxaa yeelay anigu argagixisada waa ciribtira iyo burcadbadeed maba igu daahayaan inaad isiisaan codkiina waxaana ballan qaadaa inaanan idinku caasihayno aan anigu sharcigaas ilaalinayo duruufaha aad ku nooshihiinna aan ogahayo aadanba ka warramayna qoyskiinna gobolkaad ka soo jeeda inaad igala warramaysid maahine naftiinna iyo carruurtiinna igala warrami maysid aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu